عمر كرة طويلة بيعطيها لنور حاج من الصومال لعيره اللي هو ciyaarta xiisaha badan ee u dhaxaysa dalalka Suudaan iyo sidoo kale Soomaaliya ayaa helay fursadii goolka koowaad waxaana dhaliyay weelka ku dhashay magaalada Kismaayo ciyaaryahan Cabdulxafiid ayaa dhaliyay fursad couldn't stop that from going in. That's a strike. What celebrating. ciyaaryahan Cabdulxafiid That is the beauty. Cabdulxafiid weerar markan Soomaaliya si fiican ayuu sida ay u saameeyeen dagaalkii sokeeye ee burburkii markuu dhacay kubadda cagta ama guud ahaan sportska waxa meesha ka baxay gibi ahaan oo burburay kolaabiskii ka jiray qeybaha kala duwan ee sportska haday tahay kubadda cagta kubadda kolayga kubadda fooleyda iyo kubadda tenniska ee la ciyaari jiray barigiisa qaranka Soomaaliya u dhisnaa waxa burburay garoomadii dadkii ayaa waxa ku yimi wax la yiraahdo qax iyo barakac oo kala tagay maadaama wadanku centralism ahaa magaalada Muqdisho ay ahayd caasimadda dalka garoomadii ay ku yaaleen burbur aad u weyn ayaa ka dhacay guud ahaan kubadda cagta iyo sportska waxaa lagu soo celin karaa sidii ay ahaan jirtay barisamaadkii sportska guud ahaan in dhalinyarada laga wacyigeliyo mataqaanaa maskaxiyan burburkii iyo saameynta aadka u weynaa ee ku yeeshay maadaama qaranka burburay in la sameeyo wax la yiraahdo waxbarasho ahaan loo baro physical education iskuulaadka laga soo bilaabo generationka yaryar ee hoose la soo abaabiyo generation kubadda cagta adduunka waxa laga soo dhisaa waa iskuulaadka iyo jaamacadaha dan ay kalaabis isku bedelaan dadkaas heerarka kala duwan ka soo baxay marka boqolkiiba 100 waxaan aaminsanahay in physical education uu yahay wax kaliya ee lagu soo celin karo sportskaas burburka ku yimi from Qatar Fund for Development and Qatar Charity, who are the initiators of the Sport for Development and Peace program, which is a global initiative which is aimed to promote sport as a powerful tool to engage with community, focusing on development and promoting peace, especially in contexts like Somalia and other countries in conflict or post-conflict situations. We engage with youth. The program aims at promoting the activities among youth and children because these are the future generation. These are the future leaders. We believe sport has the power to change, as Nelson Mandela said. It is speaking in a language that youth understand.
our project is impact in touching the community direct. And what they're gonna do in this community today, the 50 people you see, they are ready to learn from them. That project has been changing, and I can see the last 3 months I've been working in the ground in Garowe. I see how people are excited, especially the youth. As you know, last week we have 6 days consecutive until 1:30 to 5:30 a tournament at the 4 schools for middle school and 4 schools from the high school. How the kids was excited. Most important thing for me, when the tournament had been, I was looking for the coaches, I was looking for the youth, how they enjoying, and the interview we have with the kids, how they appreciate to get this opportunity, which they never experienced, especially the kids from the IDBS, from Jilib 2 and IDBS from Shabelle IDBS. And that's the most important thing we have been looking for. This is a great initiative to empower those youth on the field, men and women, and give them the opportunity and the chance to excel in sports. And as we know all, of course, sports is a great instrument for change and for empowering youth and for giving them the chance to build up the self-esteem, to empower themselves and to become future leaders. That's what we are hoping for. That's why we are here today together with so many youth, men and women through this empowering project. And we talk about physical education, which is really important, that we have sports in schools. And that's why when we visited the school in Somalia, I was impressed personally to see in that school there were boys and girls sitting together in one class. And to see this power was overwhelming for me. I was very excited about this visit to that school. So it's really impressive. We need to invest more, we need to support more, and we need to encourage those youth that they definitely have a great future and the future will be in their hands. waxyaalaha dhiirigeliya oo kaleento haddii ahaan lahayd sportiska ciyaaraha waxyaalahaas kaalintoodii runtii aad bay aaga maqan tahay oo aadana lagu baahi qaba oo waxbarashada markaas waxyaalaha dhiirigeliya waa caruurta oo markaas kor u qaado waxaa ka mid ah sportiska runtii aad baan ugu taageernaa oo aad baan runtii ilmaha ay u jecel yihiin nashaadkooda haddii ahaan lahayd inay maskaxi ahaan u dhismaan marka waa baahiyaha ugu weyn bay ka mid yihiin sportiska macnaha ay iskuulka qabo caruurtana marka aad ugu baahan yihiin mararka qaar waxaa jira caqabado markaas ku aadan xagga macnaha in ilmaha la ciyaarsiiyo waxaa caqabado ku noqon kara agabka oo kaleento oo gacanta aan ku haysanin si haddii ahaan lahayd kubadihii haddii ahaan lahayd macnaha meel space oo garoon ay ku ciyaaraan haddii ahaan lahayd yacni dharkii haddii ahaan lahayd macnaha kabihii agab sport soo dhammaystiran yacni oo waxyaalaha macnaha ilmaha lagu dhiirigelin karo oo lagu ciyaarsiin karo wiilal iyo gabdhaba ayaa meesha ka maqan marka in girl friendly space la helo oo caruurtii meel lagu ciyaarsiin karo la helo in caruurtii agab dhammaystiran loo helo oo lagu ciyaarsiiyo si macnaha ay uga qayb qaataan waxbarashada iyo dhiirigelintoodii waxyaalaha iyaga markaas xiise gelinaya ay ka mid tahay sportiska
waxaan sameynay tababar aan ku tababarayno 50 qof oo iskugu jira macallimiin iyo bulshada inta indhaheeda ah una badnaa macallimiin waxa aan macallimiintaas aan tababarkeenu uu focuska ahaa ama uu yani mawduucyadeenu ay ku saabsanaayeen in aan sportiska sida qofku marka uu sportiska oo kale injury gaaro oo dhaawac oo kale gaaro qaababka looga hortagi karo preventionkooda sida dadka baahiyaha gaarka ah qaba sida loogu soo dhaxdari karo bulshadeena waxa kaloo kamid ahaa sida aan waxyaabaha xagjirka gacanka hadalka ah oo kale si aan uga hortagi karno waxa kaloo kamid ahaa in aan sportiska aan ku soo darno school education systemka yani in aan sportiska ku soo dhex darno waxbarashada curriculumka iskuulada barnaamijkan wuxuu targetkiisu yahay ama ujeedada ugu weyn yahay in macallimiintii iyo bulshadii iyo waalidiintiiba laga dhaadhiciyo in faa'iidada uu leeyahay in ciyaalkii ay helaan meel ay ku ciyaaraan oo ciyaalkii haday helaan meel ay ku ciyaaraan oo iskuulkiiba ay uga soo horeyso playground oo markii waqti ay ciyaar helaan ay waqti ay ku ciyaaraan ay helayaan waxay saameyn ku yeelanaysaa qaabka waxbarashadooda oo waxay keenaysaa in ilmihiiba iskuulka ay jeclaadaan oo iskuulkii ay u soo ordaan ay soo aadaan sidoo kale waxay keenaysaa in bulshadii ay u aragto sportska wax wanaagsan oo u baahan in la focus gareeyo ama loo soo jeesto in ay physical education ku qayb ka noqoto xiisadaha ama ay hesho waqti u gaar ah xilliga iskuulka waa wax aad iyo aad u muhiim ah waayo waa arinta lagu gaari karo faa'iidooyinkii uu sportisku u lahaa bulshada shaqsiga iskuulka iyo ardaydaba taasa waxayna keeni kartaa dad jir ahaan iyo maskax ahaanba diyaarsan waana arin laga maarmaan arintaasina kama imaan karto iskuulada laakiin waxay ka imaan kartaa wasaaradda oo ah meesha ay ka bilaabato fulinta qorshayaasha waxbarashada Puntland gabdhaha waxay u caawin kartaa sida wiilka u caawiso dhamaan physical education ku ma kala laha wiilal iyo gabdho balse dadkeena ayaa waxay aaminsan yihiin waxa mar hadduu uu yahay sport inuu gaar u yahay wiilasha sportka kaliya ay dadku aaminsan yihiin waa bahasha la dhaho footballka saas darteed ciyaaro badan oo sports ah oo la sameyn karaa jira gabdhahana qaar ayaa waxay leeyihiin hobka inay football ciyaaraan gabdhaha marka leh dooqa inay footballka ciyaaraan waxay u baahan yihiin inaan la caburin sababtoo ah gabadhu marka ay dareento deegaanka ama waalidkeed inuusan ku dhiirigelinayn waxa ay jeceshahay waxa dhici karta waxa ay rabaan inay iyaduna ka diido oo isfahan waa ka dhacdo runtii iskuulka waxyaabo badan bay muhiim ugu tahay oo ay ka mid yihiin in ardayda iskuulka wax ka baranaysa ay ka dhisan yihiin dhanka physical educationka ama habka jirdhiska ee waxbarashada ardaydu ay isdhex galaanin ardaygu marka uu noqdo arday jimicsi qaba oo tababaran oo dhisan maskaxiyan oo dhisan runtii waxa u fududaanaysa inuu waxbarashadii kalena ku fiicnaado oo uu fit ku ahaado waxyaabaha kale oo muhiimka u tahay waxa kamid ah isdhexgalka ardayda fasalada oo kaleeto markii loo qabto tababaro ciyaaro ay ardaydu isku dhexgalayaan waxaa la helayaa wax loo yaqaano friendship saaxiibtinimo badan ayaa la helayaa oo waxaad helaysaa meel aadan noqon maxaa yeelay halkudhigga kubadda ayaa waxay tahay ciyaar aan ku barte oo kubadda markaad ciyaartid
dad badan ayaad baranaysaa adiguna lagu baranayaa waxaa laga yaabaa magacaaga oo adigu isaga aqoonin inay dadka badan ay ka yaqaanaan ama kuwa isticmaalaan marka kubadda noocaas weeye marka qaybahaas ayaa maartay faa'iidada ay leedahay ee kubadda ay tahay waana barnaamij aad u wacan aadna u fiican oo sportsku dhaxgal ku leeyahay